daawadayaal mar kale barnaamijkeeni maxaa xiisale toddobaad kasta hal mar barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku fiirinaa halka uu ku dambeyn doono masiirka Maxamed bin Salman bin Abdulaziz culayskii ugu weynaa abid uu soo fuulay isla markaana maalmihiisii ugu adkaa ay muuqdeen ay bilowdeen Maxamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud oo amiirka dhaxaltooyada iska leh ama taajka boqortooyada uu aabihii ku cimaamaday ayaa waxa uu wajahaya cadaadskii ugu weynaa kadib markii uu muuqdo in maamulka cusub ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu bartilmaameedsaday isla markaana uu ka baalmaray gebi ahaanba siyaasadii ka horeysay ee maamulkii hore haddaba intaynan horta fiirin maalmaha adag ee Maxamed bin Salman u bilowday iyo halka uu ku dambeyn doono iyo waliba sidoo kale inaan hilaadino halka ay sidoo kale istamari doonaan Sacuudiga iyo dalka Mareykanka aynu marka u horeysa fiirino Maxamed bin Salman bin Abdulaziz horta kumuha wuxuu dhashay 31 bishii Agoosto sanadkii 1985 haatanna waa sida la aaminsan yahay waxa weeye waa 36 jir wuxuu ahaa wiilka kaliya ama wiilkii u horeeyay ee wiil ahaan u dhasha boqorka dalkaasi boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud hooyadiina waxay ahayd mid kamid ah xaasaska boqorka oo ah xaaska saddexaad ee uu guursado iyadoo ay laba haween oo hore ka horeeyay waxaana hooyadii la yiraahdaa Fahda binti Falah binti Sultan waxaana ay markii uu dhashayba uu kamid noqday dadka sida weyn loo kalkoriyo ee qoyska maadaama uu ahaa horanqaadka wiilasha Maxamed bin Salman bin Abdulaziz waxa uu jaamacadda King Saud ee magaalada madaxda dalka Saudi Arabia Riyadh caanka ka oo ka qaatay markaasi shahaadadiisa koobaad isagoo kadibna shaqooyin kala duwan qabtay sanadkii 2019 ayaa loo arkay in jagadiisii u horeysay loo magacaabay taasoo ahayd mid kamid ah jagooyinkii ugu waaweynaa waxaana laga dhigay markaasi inuu la taliye sare u noqdo aabihii oo ahaa duqa magaalada Riyadh ee xarunta dalka Saudi Arabia oo kamid ah markaasi magaalooyinka ugu dadka badan ee wana weyn ee dalka Sacuudiga sanadkii 2012 ayaa aabihii waxa uu mar u doonayay inuu u xusho inuu ka dhigo dadka taajka boqortooyada iska leh laakiin mar dambe ayaa waxa arintaasi loo arkayay in loo daayay Maxamed bin Naif bin Abdulaziz Al Saud oo naadirkiisa ah kol kale ayaa aabihii uu ku dhawaaqay in uu ka bedelay jagadaas markaana wiilkiisa uu soo gudbiyay dad badan ayaa markii arintu halka ay marisay tuhmo waaweyn sameeyay markii uu yaraa Maxamed bin Salman bin Abdulaziz waxa uu ahaa cunug aad u badan sida ay sheegeen qaar kamid ah macallimiintiisa iyo dad kale aad u yaqaanay waxaana ku tilmaameen inuu ahaa wiil isla weyn isla markaana dhibaateyn xoogan ku hay jiray cid kasta uu arkay isagoo ka sareeyo haddaba waxa uu soo shacbixiisi ugu weynaa uu noqday markii uu noqday wasiirka gaashaandhigga dalka markii uu wasiirka gaashaandhigga uu noqday talaabooyinkii ugu horeeyay ee ku dhaqaaqay waxay ahayd in uu amaamuday dagaalka dhiigga faraha badan oo ku daatay ee lagu qaaday dalka Yemen markaasi waxa ka jiray sax aad u xoogan oo kala qaybsanaan dawladda iyo mucaaradka oo gacan ka helaya gaar ahaan kooxda Shiicada ee Xuuthiyiinta Ansaar Allah isu yaqaana oo ka helaya madaxweynihii hore ee dalkaasi Cali Abdallah ayaa bilaabay inay olole kicin iyo dagaal culus ay ku qaadaan goobaha waaweyn iyo magaalooyinka ay kamid tahay magaalada Sanca tan iyo inta wixii ka dabeeyana waxa uu si fudayd iyo isla markaana aysan ku dhehnayn cilmi iyo daraasaad uu ku dhawaaqay dagaalka markii horeysay waxa uu doonayay inay kala qayb qaataan dalalka qaarkood laakiin waxa la xaqiijiyay in dhammaan dalalka Carbeed waxyaalaha ay door bideen ama waxyaalaha ay markaasi balan qaadeen oo dhan ay hayeen kuwa kooban marka loo eego baaxadda dagaalka iyo sidoo kale cilmiga dagaalka lagu saleeyay oo ahaa mid gabi ahaanba ay ka madnayd ama ka badnaa xog dhaba oo gudaha taallay haddaba dagaalkaas ayaa markii dambe wuxuu noqday dagaal dhigmayra wuxuu dhaliyay waxa lagu naanaysay ama loogu magac daray arinta xuquuqul insaanka ugu ballaaran ee dunida ka dhacday dadka reer Yemen ayaa 80% in ka badan maanta waxay u baahan yihiin gargaar caruurta yaryar ee reer Yemen ayaa nafaqo darro aad u weyn soo food saartay waxaana dhintay kumanaan kamid sidoo kalena waxa barakacay ku dhawaad 100,000 oo qof oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa oo kala cararay dad badan oo reer Yemen ayaa sidoo kale waxa gaaray dhibaatooyin dhinaca duqeymaha ay qaadaan Sacuudiga iyo xulufadiisa dalal kooban ayaa dhowr diyaaradood siiyay qaarkoodna way ka dhaqaaqeen dalka kamid ah dalalka sida weyn dalkaasi dhabarka uga jabiyay waxa kamid ah dalka Imaaraadka Carabta oo siyaasado kala duwan isagu dalka ka bilaabay siyaasadda ayaa waxa ay ahayd kadib markii kooxihii isla jiray oo kooxda reer konfureedka ee kan ee loo yaqaan iyagu mar walba in ay midnimada dalka ka doorbidaan ayaa taageero lixad ka helay Imaaraadka oo isagu ka qudraynayay inuu ka qaato dekedo iyo waliba magaalooyinka ay kamid tahay magaalooyinka dekedaha leh ee Suqadara ee ayagu ah jasiiradaha taasi waxa ay dhalisay in siyaasadii Saudi Arabia ay maradu kaga dhacdo gudaha dalka Yemen taa waxa sii dheeraan Maxamed bin Salman bin Abdulaziz inuu ku dhaqaaqay olole xoogan oo ku cadaadinayo dadka isaga diidan iyo qoyskiisa dad badan ayuu ugu marmarsooday barnaamijka la dagaalanka musuqmaasuq wuxuuna ku banaystay hantidooda sida dad badan ay aaminsan yihiin iyadoo oo la sheegay in balaayin doolar uu ka qaaday qaar kalena uu xidhaadh uga dhigay in aysan ka hadlin arrimaha dhinaca qoyska isku hayo qoyska dhexdiisa ayaa kala daadasho xoogan laga sheegay kuwaasoo bahbah isku qabsaday kadib markii uu kala irdeeyay
xukunka loo bootiyey markaasi MBS hadaba maalmihii ugu dambeeyay waxa uu Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz u diyaarsanaa darbaaxooyinka kaga imaan kara maamulka Mareykanka. Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud wuxuu aad iyo aad isugu dayay inuu cilaaqaad wanaagsan oo la sameeyo maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump cilaaqaadkii uu la lahaa waxa kasbay wiilka uu sadaqa u ahaa Trump ee Jared Kushner ninkaas oo ah dilaalkii weynaa ee arrimaha jaamacadda Carabta dalalka ku jira ee Carbeed iyo Israa'iil dilaalay ninkaas oo asal ahaan isagoo ka soo jeeda Yuhuud qabana gabadha Ivanka Trump leeyahay ayaa uu cilaaqaad wanaagsan la sameystay Mr. bin Salman. taasi waxa ay dhalisay in dad badan ay ka sii fogaadaan bedelka ay taageeri lahaayeen isaguna wuxuu u arkay fursad uu ku kasban karo kuna sii wadi karo horumar xooggan uu kaga heli karo cilaaqaad wanaagsan oo uu la yeesho dadka ay ka mid yihiin xubnaha ku dhow aqalka Congress-ka aqalka Senate-ka iyo dhammaan saraakiisha sarsare. taasi way dhacday laakiinse waxa ka sii caraysay xisbiga dimuqraadiga oo asagoo mar walba la saadalinayay inuu awoodda dalka Mareykanka dib ugu soo noqon karo. sidoo kale afkaaraha waaweyn xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa waxa kamid ah in la yareeyo dadka cadaadiska xoogan isticmaala awoodda iyo galaangalka ay dunida ku leeyihiin. tani waxa ay noqotay mid kale oo markaasi culays ku noqota kadib markii dhammaan aqaladoo dhan dalka Mareykanka aqalka Congress-ka hoose Senate-ka Congress-ka iyo aqalka cad saddexdaba ay halabsadeen xubnaha xisbiga markaasi ay isdiidan yihiin bin Salman sidoo kale wuxuu dareemay culays kadib markii uu Joe Biden sheegay inuusan khadka telefoonka kula hadli doonin taasoo ka dhigan inuusan u aqoonsanayn madaxa guud ee dalka ama in uusan la rabin jagadaasi. way dhici jirtay in khadka telefoonka ay Trump isagoo ku wada hadlaan mar walba wuxuuna Trump u arki karayay inuu yahay hogaamiye. sidoo kale dalalka reer Yurub ayaa aad uga gabangaabsaday mar waxay u arki karayeen ama ay dalalkooda u maleynayeen in uu yahay nin dhalinyaro ah oo la shir yimid arrimo waaweyn isbedel leh dhinaca xuquuqul insaanka ayana aad ugu amaanay ayagoo gaar ahaan aad u daneynayay isbedelka dhinaca dumarka uu ku sameeyay iyo inuu u ogolaaday inay baabuurta wataan maxram la'aan inay baxaan oo ay gooshaan dunida. sidoo kale inaan lagu xidhin gabadha inay fasax ka soo qaadato saygeeda haddii ay doonayso inay baxdo taasoo Sacuudiga dhammaan ay sharciyada ka jiray oo dhan ahaa. waxa kale oo hadaba tabarbar socotay in uu dadka reer Saudi Arabia gudaha ku sugan ee shacabka uu doonayay inuu dhex galo. warbaahinta ayuu dhowr jeer la hadlay isla markaana wuxuu u muuqday nin furfuran isagoo xataa gabdho aan xijaabnayn siiyay waraysiyo. waxaa sidoo kale la arkayay isagoo oo mar kale u muuqday inuu doonayay inuu dadka uu shaqo siiyo shaqooyinka dhinaca maalgashiga ayuu u furay shirkadda Aramco. wuxuu sidoo kale keenay qorshaha loo yaqaan aragtida 2030 wuxuu la yimid arrimo wadaniyadeed oo ka dhigan in dalka Saudi Arabia oo isagu wax soo dhoofsadaha ugu weyn dunida dhinaca hubka uu dhawaan sheegay inuu 50% ka maarmi doono dalku 10 sano soo socda inuu hub dibadda ka iibsado lana maalgeliyo warshadaha gudaha. aragtida 2030 vision leeyahay ayuu sidoo kale ku qeexay inay qayb ka noqon doonaan waxyaalo wax soo saarka dalka Saudi iyo muwaadiniinta in dalka laga dhigo kuwa iyaga ugu horeeya ee laga fooriyeelo wax kasta ama baahi kasto taala. arrimahaas oo dhan oo jira cadaadiska hadeerto saaran ka badbaadi kara marka ay noqoto cadaadiska xoogan ee saaran dhinaca hogaanka waxa la aaminsan yahay inuusan ka badbaadi karin. dad badan waxay aaminsan yihiin in Mareykanka iyo reer Yurub iskaashanaya ay cadaadiskii ay ku saari doonaan inuu laba maado mid kala doorto inuu noqdo hogaamiye go'doonsan oo dunida oo dhan ka go'doonsan kaasoo uu Saudi Arabia galaafto iyo in uu isagu keligii uu noqdo nin markaas lagu ciqaabo dambiyada uu galay. waxa dadka adrasa arrimaha dhinaca sharciyada caalamiga ah ee shaki weyn ka muujinayaan in arrintaas ay ku xidhnaa doonto waxa ay yeelan qoyska reer boqor. haddii taageerada qoyska reer boqor uu wada helo taasoo uu aad u kala qaybiyay waxa uu noqon kartaa inuu ka badbaado marka la siiyo xasaanada qofka dalka ugu sareeya waa haddii aabihi meesha ka baxo. haddii aabihi geeriyoodo ayaana arrintaas u heli kara waayo dalka Saudi Arabia si kale boqorka talada looga qaado. waxaana taasi ay imaan kartaa haddii loo dhaariyo inuu noqdo madaxa guud ee dalka inuu la mid noqdo sida Mareykanka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi. Modi markii uu ahaa wasiirka gudaha ee gobolkii dhibaatadu ka dhacday dadka muslimiinta lagu gumaaday sanadkii 1992 waxaa laga mamnuucay in uu dalka Mareykanka yimaado laakiin taasi way burtay markii uu noqday madaxa guud ama wax loo yaqaan head of state ama qofka dalka ugu sareeya. haddii taas Maxamed bin Salman uu helo waa sida kaliya Mareykanka isagu ku kala badbaadi kara laakiin Mareykanka uu ka shaqeynaya waxa weeye inuusan taagaarin. waxayna aad cadaadis ugu saari doonaan boqorka dalka hadarta jooga boqor Salman inuu ka bedelo oo ka qaado talada iyo waliba go'aanka sugitaanka taajka boqortooyada Maxamed bin Salman maalmo aad u adag diblomaasiyad kulul ayaa ku bilaabatay. isaga laftiisu waa ka hordagay waana ta keentay inuu iska furfuro qaar kamid ah khilaafyadii waaweynaa ee dalalka Carabta dhexdooda ka socday. waxaa kamid ah khilaafyada uu iska furfuray kii Carabta ee Khaliijka kaas oo soo gabagabeeyay bishii Janaayo 5teedii. waxyaalaha kale hadeerta looga baahan yahay inuu iska furfuray ugu daran waxa weeye arrinta dagaalka Yaman khilaafaadka xoogan ee kala dhaxeeya
qaar kamid ah dalalka Carbeed kale iyo inuu yareeyo ilaa xad faragelinta boqortooyada Saudi Arabia ay ku taageerto dalka Imaaraadka Carabta. Barihii ugu dambeeyay waxaa jiray siyaasado soo baxay oo sheegayay in Sacuudigu uu ka gacan taagtay arrimo aad u qalafsan oo Imaaraadku uu doonayay in dalal badan oo Carbeed ku sifrageliyo. Sacuudiguna haatan wuxuu go'aansaday qofnimo iyo inuu raaco line ku saabsan qunyar socodnimo iyo inuu samcadooda tartiib u soo dhiso si markaas cadaadka reer galbeedka looga diyaar garoobo ugu yaraana looga badbaado tadariska iyo Carbeed. Daawadayaal intaan ku jijiyay tan intaan isku arki doonno barnaamijka maxaa xiisa leh mar kale hadii ay baydno toddobaadka dambe maalin kasta oo xada amaana Allah.